saraakiisha amniga muqdisho ayaa ku waramaya in magaalada caasimadda ay heshay amni buuxa kadib markii al-shabaab looga adkaaday dagaalka Soomaaliya. muqdisho oo ay ka dhici jireen qaraxyo iyo dilal xiriir ah ayay saraakiishu sheegeen in lagu guuleystay in la sugo amnigeeda. taliyaha ciidanka xasilinta amniga muqdisho ayaa sheegay in al-shabaab looga adkaaday dagaallo ay kula galeen daafaha caasimadda isaga oo tilmaamay in laga hor istaagay weerarada. waxa uu tilmaamay in la sii wadi doono howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ay ka wadaan daafaha magaalada iyo guud ahaan dalka. يعني عدوغا haddii aan la siin jaanis uu ku fikiro يعني waxa lumaya aragtiyo badan oo yani uu leeyahay ayaa lumaya haddii maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shalay ugu dambeysay guulo taariikhi ay ka gaareen dagaalka oo wax aad loogu farxaa يعني dhaantadii ciyaarayna farxadoodu arkaysa anaga xamar joogna la qirno xaga yani dagaalka argixisada lagula jiro yani ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka dagaalamayaan furmaha aad ku fog qaybta koowaad ay ku yaabnay caasimada waa markii loo fiiriyo qaraxyadii iyo weerarada qaarkood ee shabaab soo jireen qaybta koowaad oo kaya anisi aan aaminsan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa hadday yihiin kuwa jooga caasimada muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya dhulka Soomaaliya waxa maanta ay la daalacaysaa xaalado iyo duruufo kala bedelan wajiyo badan leh waxa noogu daran khatarta koowaad ugu ah waa argaxiso dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgallada ku jira yani gobolada dalka iyo caasimada iyo meel ka sugan jira iyo dhamaan hay'adaha amniga ee howlgallada ku jira iyo ciidamada deegaanka intaba in la garab siiyo la caawiyo lagu dhiirigeliyo wadankan argixisaan ka xoreysan nolol yani waxay noogu horeysa wadankan oo argixisaan laga cirib tiro. dadka reer muqdisho ayaa ku naaloonaya amni kadib markii howlgallada dowladda ay gaareen daafaha magaalada isla markaana la soo kordhiyay baro cusub oo amniga laga sugo iyo agab fududeynaya sugidda amniga magaalada muqdisho. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.